يعني إنه دول كانوا no man's land نقطة معها إن ملك الوسط كريه معها dadka Soomaalidu karti iyo garasho iyo hoggaan dhaqan iyo hoggaan aqooneed iyo wadaniyad iyo soo jeedid iyo ismaqal iyo waxay leeyihiin wanaagsan marka arrimaha faragelinta waad ka dhex dareemaysaa waxaa kale oo ka dhadhamiyey Soomaalida in la iska eedeeyo oo indho hal qolo ayaa lagu fiirinayaa nin reer waqooyi ama Abasiiniyaana fiirinaya marka wuxuu leeyahay wadaad hebel weeye al-itixaad weeye al-bahalkii weeye yani wixii xun baxaa waale meesha waxa weeye Soomaali weligii wuu eedeysan yahay waa laga shakisan yahay weeye inuu xag jira yahay iyagu xag jir male miyaa kaniisadahooda iyo kan kala duwan ee beendeega iyo kii kale Catholiga iyo magacyadii kale iyo Protestantigooda iyo Orthodoxiga iyo iyaga lama faalay iyagu maanta oo dhan waxa la leeyahay urur hebel iyo bahalka marka taa waxaan u arkay yani ku dardarid inay tahay dadka Soomaalida waxa meeshan u taala burush rinji oo la mariyo leeyahdo wadaad xag jira tahay nin eed u sahlan baa tahay dhaawac baa tahay in baad leedahay this is waa siyaasadda aanu diidanahay iyo dhaqanka diidanahay weeye laakiin investigation journalism ka ay sameeyeen waxa in la sugay u baahan tahay anigu hadda ma oran karayo waxay dhaheen oo dhan waa sax waxay yiraahdeen oo dhan waa been ma dhihi karayo laakiin laba gardaraan meesha ka ya aad aan hoosta uga xariiqay mid weeye in dad kale uu iska karkarinayaan arrimaha iyaga oo meelo kale lagu soo karin marka hadii meesha degan tahay siyaasiyan iyo structure-ka iyo system-ka iyo governance system-ka iyo muxuu ahaa bulshada iyo amniga iyo dadka aspiration ko dhan haduu sax yahay meel laga soo galma laakiin hadii la ruxo meel laga soo galay horta gobollo la ruxaa jiro oo meeshan 4.5 ka aad maqashay ee Soomaalida lagu dabaqay Ethiopia laga keenay 4.5 waxa weeye 4 kilil oo gaangisariin oo xoog badan iyo in yaro dhibac oo lagu daray oo Soomaalida iyo canfarta iyo sida this is made in Melis moogtay baashan 4.5 ka Soomaalida ay moodayaan in Djibouti lagu sameeyay baashi ama dhowr wadaad oo qabyaalistay oo Soomaaliya keeneen Ethiopia Somali state meesha khariidada Ethiopia liya maanta ugu nabadgeliya badan weey nabadeeda annaga keenay on laf baa keenay shacbigeeda keenay nabad baanu ka dhigaynaa nabad bayna ahaan doontaa nabad bayna ahaan lahayd hadii caqliga Abasiiniya muxuu ahaayay ujeedada gurracan ku dhisan sida professorku sheegayay ee taariikhiyan hal dad fahma badan ma halba arrin bay alifi 600 sano ag fadhiyaan hatta ma bedel yaqaan kuraasti min al-khiskamayna bedelin ra'yigii min al-khiskamayna bedelin systemka dawladnimada habka iskamayna bedelin waxba ma la cusba Ethiopia in wax la bedelo in wax la kaydiyo way karaan hatta lacag inay xafidaan dhaqaale inay xafidaan laakiin inay wax abuuraan ma karaan soo wax cusub inay wax bedelaan ma karaan inay wax cusub abuuraan ma karaan marka fikirka gaboobay baa meesha ku jira nabad weeye dhulka iyagu annaga ka dhignay oo laf baa ka dhigtay waana ka dhigaynaa dawladda dhexe waxaan ka rabnaa weli muxuu ahaayay wixii xun baxaa waale baa mentality-ga dad badan ka buuxda fursad ma haysano aanu iskaga difaacno xira meeshan oo EPRDF liyaado dadka lagu falanqeeyo xira meeshan oo liyaado muxuu ahaayay Addis Ababa iyo bahalkii iyo idaacadihii iyo jaamacadihii oo dadka la fadhiyaan halkaan baa lagu soo dibnahooda baan galo way dudumisay iyagu baa naga talinaya iyagu baa naga tashanaya wali miiska Soomaaliga ma fadhiyo miiska saxaafadda ma fadhino miiska ma fadhino bahashi marka in la faaleeyo kolba magacna loogu dhajiyo systemkan Ethiopia ya usababa marka isbedelka abiy madaxda ka yahay waxaan rabnaa waxaan u nahay muxuu ahay dad saaxiibul qaraar stakeholders baan nahay qowmiyadda saddexaad baan ugu dhulweyn baan nahay dhibka ugu badan loo geystay baan nahay khayraadka ugu badan leh juqraafiga ugu xasaasisan Ethiopia ka degan Ethiopia 3 jeer bay halis gasho 3 baa anaga gelinay marka qolo la iska ignore garayn karo oo kolba wadaad wax ka qorqori karo
muxuu ahay buur saarana buuraha dhaadheer noord ka soo dhacdhacay in faalla intuu ka qoro afartan xabashida marmarota lagu qorqoro deedna sidaa lagu khatimo fayl lagu xidho ma noqonayso waa la isla kululaaday annagoon cidnana taageerma EPRDF iyo TPLF meeshaan saare aad ogeyd 27 sano u dambeysay dadkan Soomaalida si respect leh in loola dhaqmay u baahan yihiin miiska go'aanka yimaadaan miiska aqoonta yimaadaan miiska yimaadaan muxuu ahay miiska saxaafadda iyo ka jaamacadda iyo ka cabinetka inaan nimaadnaan u baahannahay oon dhahno taasina waa been taasina waa run taa haddayna adiga kugu soo ban anaga naguma soo bato kama yeelayno sidii hore Addis Ababa sidan soo tiri ma kala kayaabaa kan yidhi maxaa ahayd makir bayd baa sidan yidhi afartii eray xabashiga inta lagu celceliya xaggaa laga soo afuufi jiray taa intay naga gasho annaga taa naga bixi mayso kolka Ethiopia indhaha galkaa ku celiso prime ministerkeeda indhaha galkaa ku celiyo cabinetkooda jaamacadahooda iyo Abyssinianka iyo afartan eray xabashiga horta indhaha galkaa ku celiyaan sidaa ma aqbalayne waa qodobka labaad dadka Soomaalida ah kolba kii madax looga dhigay wuxuu doonayeen inay habad ahaadaan habad inay journal bay leeyihiin TV bay leeyihiin aqoonyahanay leeyihiin iyaga ugu afdheer oo markii bal u fiirso kolkaan banaanka joogno Ethiopiaanka oo dhan annaga ka firfircoon haddaan galaaska fadhinana annaga ka dhibca badan haddii suuqa la taga Mareykan markii la tagay madax Soomaali ana waad ku aragtay moolal Soomaali ana waad ku aragtay nin Ethiopian oo cooshad furan kara ma jiro kolkii Koonfur Afrika loo qaxayna Soomaali baa ilaa Nairobi iyo sii waday ilaa iyo Koonfur Afrika sandaqad ay Soomaalidu iska iibinaysa Ethiopian ku iibsadaan oo meesha suuqa ku xumaatay kolkii xira meeshana la galo biiro u bixiyaan biiro xafiiskooda biiro baliya markii biirooga la galay inay aqli badan yihiin meesha biirooga dhaan kolkii suuqa la joogana ka karti badanahay ka hal abuur badanahay ka waxbarasho badanahay ka wax soo saar badanahay xataa in dibadda loo qaxo Soomaaliya dabada qabsadaan ma qax garan xafiis biiro la yiraahdo oo Addis Ababa iyo buuraha ku yaala ma la galaa kaligood ba wax garanaya horta taasana haysata dadka dawladda Soomaalida ee ismaamulka Soomaalida dadka Soomaalida inuu habad ahaado oo kolba cirka uu soo dhawray yaa jigjiga ka soo degaya garaad wilwaal lagu hayo oo xagga wixii nooga yimaado noo dawladeeyo oo saxaafadooda ayna hadli karin oo iyagu af يعني أف حبشي ضد ما بيقان وأف أرمضة يقان أو لقدها كله يقان ضد كالصومالي الصور كود إنه جدبيان يجونا إن لا أقلاده أو سحرة أو عبس الجلنتي يملتري يمكلا كياجا هالكيري فدرال كيري يو سنتر كت مدن صومالي اللي هو خوقنا ماشي إنه كبح ذوي تالس اسمه حكومة ما أنت مستفى ضد كالصومالي ذا بستحقين إنه كقادوي maxaanu nabad u qaadanay dadkana inuu qalbiga ka xiroobo oo maskaxda ka xiroobo oo dhaqaalaha ka xiroobo oo siyaasadda ka xiroobo oo carabka dadka kale ka xiroobo oo qalinka ka xirooban yaan u qaadanayna muxuu ahay nabadda in wali loo falsafay philosophy la isaga dhigayo oo xagga wax laga soo qorqorayo muxuu ahay soo professor ku sheegay qalabkooda inay isticmaalaan ma qabnaa qowmiyadaha walaalahana oromada iyo muxuu ahay qowmiyadaha waaweyn Ethiopia Axmaarada Soomaalida in la respect gareeyo miiska la soo fadhiisiyo way Ethiopia waxa la qaybsado oo jiritaankeena iyo muuqaalkeena iyo aqoonta iyo shaqada federaalka iyo saxaafadda iyo political decision ka baan soo fadhiisan in aan marti u nahaano oo naloo dawladeeyo enough taa dadka Soomaalida la xukuumadda Soomaalida la fuleynimada iyo yasmaannimada la iska daayo weeye nina nagama dhulweyno nagama dadbadno nagama organizeno diiqooyinka dhex fadhiyaan waad arkayseen qowmiyado badan oo kale iyo tabardaridooda haddana inagu ma leeyahay ceebta daya way qaawan yihiin inagu ma faraha lana ugu fiiqay marka dadka Soomaalida hoggaanka la rabaa inuu yaado goobaa tahay istaag wax la qaybso ummada waa qodob kalena waxa weeye isbedel wuxuu ahaa tallaabooyin fiican qaaday oo dad muxuu ahaay fikrad fiican oo prime minister ku horeeyay ay wateen ay bilaabeen annaguna waan soo dhaweynay waan garab istaagaynaa sababtan shuruud la'aan iyo gorgorta la'aan oo la heshiinayna waxay dadka nagana inuu nasto isbedelka fiicanna aan kala qayb qaadan marka waxaan u baahanahay corridor waxaan baahanahay muxuu ahaay daaqada naloo banay inay sidan ka weynaato contribution baan leenahay weyn oo xagga amniga oo xagga dhaqaalaha oo xagga siyaasadda oo xagga muxuu ahaay isbedelkan wixigiisa dad ebramanin dad wax gala oo karti leh oo tiro leh oo tayo leh
oo sharaf leh oo isku kalsoon aqoon leh baan waxbaanu soo kordhin kuwa afka ka abureeya yaanu ka waxtar badannahay oo ka dhaqaale badannahay oo aanu ka culusnahay oo ka saameyn badannahay oo ka istiraatiijinahay juqraafiyan iyo siyaasiyan aan maxaa ahay juqraafi ahaan iyo siyaasad ahaan baan